khilaaf siyaasadeed farmaajo iyo Roble war-saxaafadeed ka soo baxay maanta gelinkii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in hay'adaha dawladdu ay sii wadaan shaqadooda. war-saxaafadeedkan ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble ayaa sidan lagu yiri iyadoo oo laga ambaqaadayo qodobada dastuurka ah ee kor ku xusan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu farayaa dhammaan hay'adaha dawladda in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkoodii shaqo si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah. joogteeyayna adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta hantida iyo danaha guud ee qaranka, iyagoo xasuusan isla markaana dhowraya go'aamadii uu horey u soo saaray ra'iisul wasaaraha. hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo xarunta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu ku hakinayay in hay'adaha dawladdu ay galaan heshiis ama is-afgarad kaas oo uu madaxweynuhu sheegay in uu taabanayo siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka. haddaba tallaabooyinkani ma khilaaf ayay muujinayaan sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka falaaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya marka la eego qoraaladii ugu dambeeyay ee ka soo baxay dhinacyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. waxa uu muuqanaya khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble kaasoo la xiriira kala aragti duwanaan ay dad badan u arkaan in ay salka ku hayso awoodaha dastuuriga ah. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in war-murtiyeedyadii ka soo kala baxay aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo muujinayo khilaaf weyn oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis wuxuu sheegay in khilaafkani uu sabab u yahay dastuurka ku meelgaarka ah oo mugdi gelinaya awoodaha madaxda sare. Professorku wuxuu sheegayaa in khilaafkan waxa keenaya dastuurka oo u qoran si mugdi ku jiro, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha awoodoodu aan si cad u kala xadidnayn, oo madaxweynuhuna muxuu awood u leeyahay ra'iisul wasaaruhuna muxuu awood u leeyahay, ayuu yiri Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo falaaqeeya arrimaha Soomaaliya. oo kale Daahir Qoryo Wisaaq oo ka faaloodo isaguna arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in hadalkii ka soo baxay madaxweyne Farmaajo iyo kan maanta ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble uu muujinayo khilaaf labadooda u dhaxeeya. hase yeeshee wuxuu intaas ku daray in hadiiba ay jirto khilaafkaasi heerka gaadhay ay tahay in baarlamaanku uu soo farageliyo arrimahan. waxaa haddaba nasiib darro lagu tilmaami karayaa xilli uu khilaafkan uu soo shacbaxayo ayaa ah waqti uu dalku marayo meel xasaasi ah oo doorashada dalku u jeesan yahay. haddii ra'iisul wasaaraha uu ka soo daba hadlay madaxweynaha waxay tusinaysaa khilaaf dowladda dhexdeeda ah. ra'iisul wasaaruhu waa fulintii dhageystayaal halkaad nagala socotaan oo bartaan YouTube-ka ku leenahay. haddaba ra'iisul wasaaraha oo uu madaxweyne Farmaajo uu ku wareejiyay awooddii dalka ayaa waxaa imanaya khilaaf xoogan oo u dhaxeeya labadoodaba iyadoo dalkuna uu ku jiro doorasho. bartaad nagala socotaan oo barta YouTube-ka ku leenahay. ilaahay waxaa ka baryay inuu Soomaaliya khilaafkeeda uu kala qaado. haddaba muxuu keeni karaa khilaafkani? falaaqeeyaasha qaarkood ayaa qaba in khilaafkani waxyaabaha hadda keenay ay ka mid tahay arrimo siyaasadeed, sababtoo ah war-saxaafadeedka soo kala baxaya madaxtooyada ayaa muujinaya in madaxweynuhu ku diidan yahay in hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulinta ay heshiisyo la galaan dalalka kale, hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. halka kan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaruhuna uu u muuqday inuu jawaab u ahaa hadalkii madaxweynaha. haddaba khilaafkani saameyn ma ku yeelan karayaa hanaanka doorasho ee socda? maadaama uu haddaba dalku ku jiro xaalad doorasho isla markaana dadku rajo ka qabaan in wax walba si nabad ah lagu gaaro, ayaa dadka qaar waxa ay qabaan in kala aragti duwanaanshaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay yeelan karto saameyn, inkastoo aan la dirisi karin inta ay leeg tahay saameyntaasi. sidoo kalena waxaa jira dad qaba in aanay saameyn sidaa u sii weyn yeelan karin. dadka sida dhow ula socda arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in kala aragti duwanaanshaha madaxweyne Farmaajo
iyo ra-iisul wasaaraha ruucadaaga ee Rooble ay keeni karto in laga mashquulo arrimaha doorashada iyo xalinta khilaafaadka doorashada, taas oo iyana xaaladda sii muujin karta. Inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sida uu xaalku noqon karo, haddana qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in arrintani la qaboojiyo isla markaana ay kacaan dadka waxgaradka ah iyo culimada, maadaama uu dalku wajahayo doorasho shacabkuna ay rajo ka qabaan in doorashadaasi si nabad ah ay ku dhacdo. Dadka qaar ayaa qaba in haddii madaxweynuhu uu ka falceliyo hadalkii ra-iisul wasaaraha ay arrintan xalka dalka sii kicin karto, walaacna gelin karto dadka Soomaaliyeed. Haddaba dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu hadduu hadalka ra-iisul wasaaraha ka falceliyo arrintan ay dalka sii kicin karto, walaacna gelin karto dadka Soomaaliyeed. Waxaanay ku fiicantahay in xilligan xaaladda la dejiyo si loogu daneeyo ummadda Soomaaliyeed ee dowlad la'aantu hayso doorashadana ku jirta. Waraaqaha isdiidan ee maanta kasoo kala baxay aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo maanta wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya, naagta la dhaho Raquel Omama, ay booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho, halkaas oo ay kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq. Safarkan ayaa lala xiriirinayaa dib u hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ruucadaaga Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Raquel Omama, isla markaana waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ruucadaaga Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Omama, isla markaana waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal.